haweeneydan oo u dhalatay dalka Mexico ayaa ku guuleysatay tartan dhanka orodka ah oo sanad waliba lagu qabto dalkaasi. ma jirin wax khibrada oo ay u lahayd tartankan. waxay xirnayd dharka dhaqanka iyo kabaha orodka iyadoo qayb ka noqotay dadka tartanka ka qaybgalayay. tartankan ayaa la ordaa ilaa 63 kiiloomitir iyo 39 mayl oo xiriir ah. haweeneydan oo aan haysan qalab orod iyo tababar aan ka ahayn nolosheeda maalinlaha ah ee ugaarsiga duurjoogta ee dhanka buuraha, haddana adkaysigeeda dhanka orodka ayaa u suura geliyay inay saacado badan orodo iyadoo aan wax daala dareemin. mar wax laga weydiiyey arrinta ka dambaysa guusha ay gaartay ayay ku sheegtay inay sabab u tahay qoyska ay ka soo jeedo oo ah ugaarsato had iyo jeer buuraha ku eryada ugaarta ay duurka ku arkaan. guushan waxay u tahay farxad aad u weyn qoyskayga. horay ayaan u garanayay tartankan ka dhaca halkan sanad kasta. weligay kamaan qayb qaadan hadda ka hor, laakiin sanadkan inaan aniga ku guuleysto maanan filaynin. Candelaria ayaa sidaasi tiri tartanka kadib. dad badan oo goobjoog ahaa tartankan halka uu ka dhacayay ayaa qaarkood u arkayay in haweeneyda tartanka lagu soo qalday maadaama ay ku qiimeynayeen muuqaalkeeda iyo inaysan diyaar u ahayn ka qaybgalka tartanka. waxa ayna xirneed dharka hidaha iyo dhaqanka, taa oo loo wada arkayay inaysan suuragal ahayn inay tartankan ku guuleysato.